Xiriirka ciyaaraha fudud iyo kooxihiisa ayaa maanta kulan weyn ay ku yeesheen xafiiska xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. Kulankan imaatinkiisa ee kooxaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ayaa ujeedkiisa ahaa warqad iyo sidoo kale doorasho aan meel aan lagu qabto la garanayn uu isku magacaabay Faarax Macalin oo sheeganaya magaca gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud. Guddiga fulinta iyo sidoo kale naadiyada ee xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ayaa kulankan kaga yeesheen iyagoona beeniyay warqadda uu soo saaray iyo sidoo kale magacaabista uu isaga ismagacaabay Faarax Macalin. Waxaana shirkaasi gudoominayay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya Maama Marwa Khadiija Aadan Daahir iyo sidoo kale ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya Macalin Mustafa iyo sidoo kale naadiyada xiriirka u diiwaan gashan ayaa kulankaasi kaga soo horjeestay magacaabista uu ismagacaabay gudoomiyaha aan jirin lagu magacaabo Faarax Macalin. Waxaana ujeedkaasi uu ahaa in dhammaan ay beeniyaan xogta uu baahiyay Faarax Macalin, kaasoo ku baahiyay qaybo ka mid ah baraha bulshada oo ku sheeganaya inuu yahay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. Laakiin waxaa ka soo horjeestay oo diidan dhammaan mas'uuliyiinta xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya iyo sidoo kale guddigiisa fulinta. Horey ayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya u fasaxday xiriirka ciyaaraha fudud inay ay hogaamiso Marwa Khadiija Aadan Daahir iyo sidoo kale dhammaan kooxaha si ay howlahooda ay u sii ambaqaadaan maadaama lagu waayay wax kiiskaas oo horey loogu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen sida ay horey u shaaciyeen guddiga Olombikada iyo wasaaradda arrinta tartanka Beijing ee dalka Jeenaha lagu qabtay, kaas oo aan noqon mid waafaqsan sharciga, iyagoona go'aansaday wasaaradda inay warkaasi u ahaa mid aan sal iyo raad ku saleysnayn. Waxaana sidaas loogu fasaxay shaqada inay sii wadaan guddiga iyo sidoo kale xiriirka iyo gudoomiyahooda inay sii ambaqaadaan howsha hortaalay xiriirka ciyaaraha fudud. Waxaa xiriirka howlahooda ay bilaabeen iyagoona qabtay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo sidoo kale tartanka iskuulaadka. Haatan la qorsheynayo tartamo kale caalami ah oo ka dhici doona caasimadda Soomaaliya oo ugu horeeya horyaalka dalkeena Soomaaliya ciyaari doonaan dhawaan. Sidoo kalena tartanka Jana Daa'uud ayaa horey loo qabtay oo ay ka soo qayb galeen naadiyada xiriirka u diiwaan gashan, iyagoona lagu ammaanay shaqada ay qabteen tan iyo markii xayiraadda laga qaaday kadib. Xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya waxa ay sameeyeen isbedelo iyo sidoo kale horumaro la taaban karo.